دولكي كيمد قلبي جيدا قاتين قولي دماغا تتباكي ملايه وحدي إلا أوكعا قولي دماغا تتباكي ملايه وحدي إلا أوكعا matoorkaanu ka cabnaa waxa weeye jiidaal adag baa jira haddii ilaah kuu idmahayo xoolaha inta aroorta iyo inta ceelka timaada inta guriga ku hartaa badan haddii ilaah kuu roon yahay inta guriga ku hartaana oon bay u baqbaqtidaa waxa weeye booto ma leh oo waxa weeye biyo shirin aan biyo loogu geeyo waa la waayey haddii ilaah kuu idmahayo biyo ceelkana way soo gaari waadeen haddii ilaah kuu idmahayo wixii aroori waadaa marka waa baktiyaan waxayna u baktiyaan oon gurigay joogaanin guriguna biyo ma leh ceelkana way gaari waayeen jidaalkuna haddii ilaah kuu roon yahay waa adag yahay haddii ilaah kuu idmahayo waxaan ka codsanaynaa haddii ilaah kuu roon yahay haddii dawladda iyo muslimka dawladda Puntland iyo muslimka in haddii la nala gacan qabto oo xoolaha baqbaqtinaya oo oonka u baqtinaya haddii ilaah kuu roon yahay bootooyin biyo loogu geeyo ay noo keenaan matoorka oo xoolaha qaar u muuqda baa oon u baqtiyeen dadka laftigiisuna haddii ilaah kuu roon yahay laftigiisu waxa weeye waa jidaal qabaa haddii ilaah kuu roon yahay xoolihii iib ma leh dadku lacag ma haysto xooluhu gadan jiray reer miyiga ahay haddii ilaah kuu idmayo miyigana haddii ilaah kuu leeyahay xoolihii doon bay noqdeen markay doon noqdeen waa la naco waa la iska daayay faraha laga qaaday waxa weeye raashinka laftigiisa dadku waa haddii ilaah kuu inta gadan kartay intaan gadan karin baa badan waxa weeye haddii ilaah kuu anugu waxaan ka warqabaa ilaa garacad ilaa dhinowda ilaa tawfiiq ilaa cawscado baan ka warqabaa ilaa jiriban ilaa mareer baan ka warqabaa jidaal adag intaas waa ka jira jidaalkuna Allah naga jibiyo dadkoo dhan buu haystaa laakiin waxa weeye meesha haddii ilaah kuu roon yahay sanada dad baa nu raacay oo haddii ilaah kuu roon yahay meel dadka haray weeye dadka meesha jooga oo abaarta ku haro guuri waayey hadduu guuri waadana haddii ilaah kuu roon yahay xoolihii sidaas bay haddii ilaah kuu roon jidaalku ugu sii adkaaday xilligii doog nurma ay arag jidaal say doog u sugayeen bay jidaalku kale ku gaareen awalna jidaal bay soo mareen haddii ilaah kuu roon doog dhaxana ma ay arag waana guuri waayeen abaartu waxa ii saamaysa kolba anugu reerkan joogo dadkuna muslimka waa ila mid haddii ilaah kuu roon anugu dadka muslimka baa ka mid ahay haddaan runta sheego waxa weeye ariga 3 meelood meel baa haddii ilaah kuu roon yahay baa soo aroortay labana haddii ilaah kuu roon guriga uga tag bay ku soo kacday waana u baqtiyaa laba toosaan buu u baqtiyaa nuxurkii oo ka dhammaaday biyihii oo u waaday gaadiid lagu keeno aan la arag haddii ilaah kuu roon yahay shilin oo haddii hadda arrada bootooyin aan dirsan lahayn waxa weeye shidaalka waa qaaliyoobay haddii ilaah kuu roon nin walba wuxuu yiri lacag ii dhiib shilina iskuma furto waxaan idhi alla ka reeba hal arag meeshaani waxa weeye waa cawscado meesha maanta aan joogno waxa weeye meeshaanu waxaa jooga xoolo reer miyi ah dad reer miyi ah oo aad u badan oo aan hayaamin oo waxa weeye abaartii ilaa abaar 3 sano meelahaas garaacaysay oo wax rooba oo lagu kala fariisto aan helin waxu yar yaro aan naf badan lahayn oo 2 sano ka hor ama ahan indhaweyd roob ma helin ilaa waxa weeye 2 sano iyo 8 bilood meeshaan roob lagama helin lagama guurin intii waxa weeye xataa aaga ku dhowdhoweyd sida tawfiiq ka sokaysa ilaa garaac ilaa inta way isugu soo xataa gurgurteen reer miyi aad u cadad badan baa meeshaan degan waxa weeye waa ka cabahaya xoolaha inta timid iyo inta waxa weeye gurigii jidha waa kala baran yihiin gaadiidkii waxa weeye awr iyo dadku waa dhaansan jiray awrtii waxa weeye ma gaay waxa ma qaadi kadho
keligeed ayadoo ah wixii socon karaa iska yimaada booyadihii waxa weeye dadkii ma dhaansan karo qarashuu ku dhaansada ma haysto matoorka xataa dadkii waxa weeye wuxuu isaga bixiya ma haysto adigu reer miyigu waxa weye abaaran caadi ahayn oo 3 sano gaadhay baa haysata aadna waa u tiro badan yahay ilaahay baa wax la gaari kara laakiin waxaan rabnaa wixii waxa weeye soo caawin karaa inay soo caawiyaan hay'adaha dawliga kuwa samafalka dhammaantood ciddii soo caawin karaa dadkan iyo xoolihiisa dad aad isugu tabaalaysan weeye ciddii soo caawin karaa inay soo caawiso anigu waxaan ahay motoristaha ceelka jooga waxaa weeye meeshaas abaar baa ka jira aad iyo aad u kulul oo dayrtii la waayey gugii la waayey xoolihii wixii guuri kara way ka hayaameen wixii dalka ku haray baa ceelkaas socdo degmada Jiriiban ilaa Garacad Dinowda Tawfiiq baa la isaga yimid dadkaas waxa weeye lama koobi karo kala bar xooluhu waxa weeye waa ka baabeen barna waa u joogtaa waxa hadda joogana waxa weeye wax ceel soo gaarka maaha maalintii waxa ay timaadeen ilaa dad ku dhow 100 qof baa ay timaado oo cabanahaya oo biyo la'aan ka cabanahaya oo inaan rituguna biyaha u geyn karin gaadiid lacag ay ku dhaansadaan ay samaysan arrimahaas waa arrimo aad u soo noqnoqday dhulkaana waxaa la isugu soo ceelka istiraatiijiyadda ku yaala meel caws ku yaala maadaama dayrtii ugu geli waayey waa iska yaraaday daaqna waa fogaaday gurigaas abaaray qoraya diday salaama dheer aadka halkaas nololkaas waxaa soo aroori karana waa wax yar marka degmada Jiriiban iyo dowladda Puntland iyo inta wax garanaysa meeshaas waxaa ka jira aad iyo aad u jilicsan baa ka jira waxaan isku xilqaanay biyaha dadkaas maadaama aysan garan waxaanu tari karno inaan xagga inta tabartayada ah ceelku shidaal baa ku baxay shidaalku meeshuu ku marayo waa la garanayaa maalmahan oo dambe xoogaa ilaahay qorax buu siiyey oo soo dadka baa wax naga caawiyey arrimahaas xoolaha iyo dadku wax iibsama xoolaha dadka u gadmay ma jiraan maanta waxaan joognaa tuulada Cawscadde runtii waxaan ugu nimid dad abaaraysan aad u liita xooluhu waa jilicsan yihiin waxaan magaalada ku aragn dad badan oo baadiyaha ka soo xarooday oo runtii xaaladdu aad bay u adag tahay dhowr sano dadkan roob ma arag hayaankii ugu dambeeyey dadkii u hayaameen dhinacaas iyo hawdka dhinaca baleed Bursalaxna kuma aysan jirin waa dadkii tabar u waayeen aadin ayagii oo muddo ilaa 4 sano roobna arag xooluhu iska wada baqtinayaan dad iska wada silcsan oo meel biyo la'aan ceelkaas wixii imaan kara saagaxyaalaha aad u qeyrona arna waxa kamid ahaa nin 3 tiro lahaa oo tiro ceelka keensaday inta kalena yiri booyadna ma hayo waxaan ku gaarana ma hayo ilaahay waxaan leenahay soo qaboojiyo waxaan muslimiinta iyo dadka iyo muslimiinta ilaahay u baryeena iyo wixii muslimna caawin karo dadka in la soo gaaro wixii la soo gaarsiin karo waxaana ugu muhiimsan in biyihii iyo maciishada nafteeda oo aad u qaaliday Puntland Soomaaliya maanta oo kacay way saameysay kiishka bariiska wuxuu marayaa kiishka sonkorka iyo $50 abaf uu marayaa ay nafteeda waxay ku noqotay sicir barar iyo abaar badaka isku darmatay waxay u baahan yihiin in loo soo gurmado annaguna wixii tabartay diyaar baa u nahay muslimkana dhamaantood u soo jeedinaynaa in aan la fiirsan la isku caawiyo ilaahayna soo inoo yiri caawiya waxaan joognaa deegaanka Cawscadde dabcan meeshan aad arkaysaan waxa ku nool dad badan meelaha horta waa goobtii dadka isugu imaanayeen meeshan waxaad arkaysaa dad badan oo meeshan ku sugan oo xaaladoodu ay tahay xaalad si kala ah sababtan ay tahay xoolihii oo jidaarsaday wax la gataa aan lahayn wax la maala lahayn wax la qashan aan lahayn dadka qaar baa jira xitaa ka soo agdhawaaday deegaankan iyagoo markaasi raba inay dadka wax weydiistaan ama ay goobta soo degaan maadaama aysan xoolo mataqaanaa ay qashaan ama maashaan ama gataan xoolaha miyigu 3 waxyaabood weeye qalasho gadasho iyo maalis saddexduba haddii ay beelaan qofku waxa uu ku noolaan karo waa ay adag tahay xaalad duruufeed oo adag baa jirta dad badan baa meeshan isugu yimid waxay rabaan cid allaah ciddii taakulayn karta ama gurmad soo gaarsiin karta inay soo gaarsiiso dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa waana arkaysaan meelaha qaarkood carruurtii iyo waayeelkii baa lagu soo xareeyey meeshaan magaca Abdullah Jaamac waxaan joogaa Cawscad meeshaan waxa weeye sida la socotaan waxa weeye abaar ay ka jirto abaartaas oo in badan
2 sano 3 sano aan nur laga helin ama waxa weeye darkii roobka ku yaraa waxa weeye dadka hadda joogana xooluhu dhab ay u jilicsan yihiin aad iyo aad u jilicsan yihiin waxay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin mid xoolaad iyo mid badeed bay u baahan yihiin waxa weeye hadday marka ay tahay dowladda Puntland hadday tahay jariidaha hadday tahay guddiga degmada Jiriiban dhammaan waxaan codsanaynaa in meeshaan la soo gaaro